Garsoorka iyo baariyaasha dambiyada ee waddanka Kenya ayaa waxay gacanta ku hayaan kiiska mid ka mid ah ragga ugu badan ee haweenka ku dila dalkaasi taariikhda casriga ah. Mustafa IDD oo toddobaadkii hore xabsiga la dhigay ayaa baaqi ku sii ahaan doona jeelka si loo hubiyo haddii caafimaadkiisa uu yahay mid taam ah. IDD oo wajahaya dhacdooyin dhowr ah ayaa wareysiyo kala duwan oo reerkiisa iyo saaxiibadiisa la yeeshay waxaa ka soo baxday natiijo la yaab leh. sida uu baahiyay wargeyska Daily Nation, shakhsigan ayaa u sheegay dadka u dhow in uu dilay kadibna uu cadcad u jaray jirkeeda haweeneydii nin kale ka raacda. Wararka ayaa sheegaya in uu qaarijiyay haweeney dhowr ah kuwaasi oo ay saaxiibo ahaayeen balse markii uu ruux kale ku arkay uu noloshooda dhaafiyay. Hablaha uu galaaftay ayaa waxaa ku jirta Emena Waniyota, gabar 20 jir ah oo haasaabo kala dhexeyn jiray. Booliiska ayaa laga soo xigtay inuu qirtay dilka Emma. kaliya ma uusan dilin, jirkeeda ayuu cadcad u jaray, qayb ahaan sida lugaheeda iyo gacmaheeda. Haraadiga ayaase weli lahayn, sida laga soo xigtay galdacwadeedka maxkamadda. Sidoo kale xukun sugaha ayaa sidoo kale loo haystaa in uu 2 sano ka hor dilay gabar kale oo ay saaxiibo ahaayeen. Ayaa mar lagu sii daayay damaanad lacageed, balse dib loo soo xiray markii uu fal kale lug ku yeeshay. eedeysanaha oo ku nool tuulo loo yaqaan Eldoret si dhab ah looma oga waxa ku kalifay arintan. hase ahaatee warbaahinta ayaa waxay la xiriirinaysaa hinaanso Maseer. qoyska dhibanayaasha ayaa dalbaday in ay cadaalad u helaan inamadooda. dadka deegaanka ayaa ka digay in mar kale dibadda loo soo saaro. si kastaba ha ahaatee marka la soo gabagabeeyo baaritaanka xeer ilaalinta ayaa la filayaa in dib looga mudeeyo goorta ay qabsoomaysa dhageysiga kiiskan oo dadka deegaanka ay aad ugu dhagraacinayaan.